السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد محمد موليد. مقال كان المانتن وحن كقالنا ألكسندر ذا جريت أما ألكسندر كيوينا. إنك استو تاريخ دي سؤال فوقتاي. هادنا مقعيس سيفي عنه وذيقان. وحوا بقر كلية دونك كسوت لي مقالين بدنا مقعانتي سولا بحو قاركود كارن إلا هاتذا. تكتيكوين كيسي دقالد وقتها دقالد كوكيلي تشرن إلا هاتن لغو برتي أسكاري نمضا. فضلا هذا نوع سبتي سبسكرايب صار channelك. داو شوعا. ألكسندر wuxuu dhashay July 356 BC taariikhda loo yaqaan ama koor Nabi Ciise dhalashadiisa wuxuu ku dhashay magaalada Bila ee Macedonia ku taal waxa loo yaqaan ilaa dhowr magac sida Alexanderkii weynaa Alexanderkii saddexaad iyo Alexanderkii Macedoniga ahaa aabihii waa Philipkii labaad ee Macedonia boqorka ka ahaa Alexander wuxuu ku soo koray nolosha ciyaalka boqortooyada Macedonia isagoo yarna wuxuu bartay wax akhriska qoraalka fardafuulka iyo ugaarsiga iyo soo kale lagdanka Alexander markuu daada 13 jirka gaaray aabihii uu kaxeeyay isagoo baadhay macallin bara falsafada iyo culuumta kala duwan aqoon-yahano aad u fara badan baa loo soo bandhigay wuxuuna kala dhex baxay filosoofkii caanka ahaa Greega ee Aristotle lagu magacaabi jiray ama Aristo Alexander macallinkiisa cusub Aristotle wuxuu ka bartay waxyaabo badan sida akhlaaqda falsafada iyo waxyaabo kale waxaan ku dhameystay waxbarashadiisa daada 16 jirka sanadii 336 waxa guursatay Alexander walaashi arooska intuu socday ayaa lagu dilay Philipkii labaad boqorkii Macedonia iyo aabihii Alexander markuu aabihii dhintay kadib wuxuu la wareegay xukunka isagoo jira da'da 19 saasaana lagu magacaabay boqorkii Macedonia 336 dhalashadii Nabi Ciise ka hor markuu xukunka la wareegay wuxuu leeyahay dhammaan cidii ay damac kaga jirtay boqortooyadiisa ama kursigiisa koonfurta boqortooyadii Macedonia markay maqleen dhimashada Philipkii labaad aad bay ugu farxeen waxay sameeyeen marjidooyin fara badan waxaan isku dayeen inay gaaro goostaan Alexander markaa wuxuu sameeyay ciidamo badan u diray oo khasab koos kana xukunkiisa isaasan dawladdiisa dib ugu mideeyay Macedonia kadib mideyntii boqortooyadii Macedonia uu mideeyay Alexander wuxuu bilaabay inuu ka dhabeeyo hamigiisa hawadiina ku soo barbaarin jirtay ee ahayd furashada Persia ama dawladdii Furs oo waqtiga ugu awood badnayd xagga ciidan ahaan marka la eego iyo dhaqaale ahaanba dhul aad u ballaaran ka tilmaysay waqtigaas wuxuuna weerar ku qaaday dawladdii Persia lagu magacaabi jiray dagaalaad u fara badan oo waaweyn buu la galay dawladdii Furs dhammaantoodna uu ku jabiyay dhulkii dawladdii Furs waqtiga ka tilmaysay dhammaantood la wareegay muddo 13 sano kaliya ah ayuu kaga taliyay Macedonia laga soo bilaabo ilaa Egypt Greek ilaa qaybo ka mid ah Hindiya taariikhda muddadaas yar 13 sano bay isku bedeshay dawladdii wadda badnada Persia la yaqaanay lagu waayay oo ku soo baxay boqor Alexander la kaligii dunida ka arminay in ka badan 20 magaalo ama 70 magaalo ayuu magaciisa ula baxay waxaana ka mid ah magaalada Masar ku taal Alexandria lagu magacaabo Masar markuu qabsaday kadib ayuu magaaladaas Alexandria u bixiyay Alexander wuxuu dhintay bishii June 323 ka hor dhalashadii Nabi Ciise isagoo 32 sano kaliya jira taariikhyahanadu isku khilaafaan sababta dhimashadiisa qaarkood waxay sheegaan in isagii saaxiibkii khamraad fara badan cabeen kadib xumadu ka qaado muddo la xanuunsanay saasuu ku dhintay qaarkoodna waxay sheegaan in isaga dadka agdhow ay sumeeyeen cid si toos ah u hubta laakiin ma jirtay lahaatan waxa loo badiyaa inuu si dabiici ah u dhintay sababaha taariikhyahanadu ugu bixiyeen the great ama Alexander ka weyn waxa ka mid ah dagaaladu galay weligii aan dagaal lagu jabin tacticoin dagaal oo hore loo isticmaalay ay ku dagaalami jiray taasoo ka dhigtay tacticoinkii Alexander mid lahaatan la barto wadaahiyadiisa caanka ah waxa ka mid ah kama cabsanay koox libaaxya oo ri hogaaminayso laakiin waxaan ka cabsanay koox adhiya oo libaax hogaaminaya waxaan ka faa'iiday cadawgayga in ka badan waxaan ka faa'iiday asxaabtayda sababtoo ah cadawgaygu markay igu caayaan ceebtayda waan iska hagaajin jiray laakiin saaxiibada way ii qurxin jireen khaladkayga way igu dhiirigelin jireen marka saaxiibka xun buu ka wada waxa kale oo ka mid ah wadaahadiisii inuu yiri ma jirto wax la ma dhici karto hadaba isku dayo waxaan dhimanayaa iyagoo ila tacaalayaan dhakhaatiir badan macnihiisa wuxuu ka wada dhakhaatiirtu moodka ma celin karaan aabahay waxaan ugu mahad celinayaa maadaama uu dhalay laakiin macallinkayga waxaan ugu mahad celinayaa maadaama uu barasada loogu noolaado si wanaagsan intaas ayuu ku eegay muuqaalkeena maanta muuqaalkeena dambe waxaan kaga hadli doonaa dagaalka mid dagaaladiisa ugu caansanaa ee Gagameela lagu magacaabi jiray fadlan dadku cusubtay channelka subscribe sar lana wadaaga asxaabtaada assalamu alaykum